horta anaga dad Soomaaliyeed waxa way isku xirxiranahay xididkeena waa isku xiran yahay Soomaali meel kasta joogto waliba carrada hadda jigjiga iyo kililka shanaad anagu u dhalanay runta sheegayna moogta aad iyo aad horta ugu tacsiyanaya gabadhaas iyo ehelkeedii Allah u naxariisto iyo inta Soomaali oo yani Allah ka samirsiyo oo aniga koob ka ahay iyo inta kale ila mid ah marka waxa ugu daran guriga marka waxa way anaga dhaxdeena waas garanayna wasla noolahay dadku wasla noolay wala ogyahay laakiin qofku wax dilay magaciina ma ahayn magacu wato waas garanayna magacu wato sida anaga hadda aan qabarka ugu hayno waa magacyadii hore oo anaga dhibaatada lagu haajiro magaciyo wata qofka magaca tahdii iyo laga gaari waayo oo dambigu leeyahay maxkamadda la saaraan maxkamadii oo anaga aan leen oo maxkamadeena sare oo jigjiga la saari waayo kilka shanaad dawladeeda maxkamadeeda la saari waayo wax kala hadda lagu arki doonaa ninkaas waa in maxkamadda la soo saaraa ilaa anaga ma ahan qofku wax dilay sababtu u dilina waa ina maartay meesha waxba ku jira ma garatay maxkamadda la soo saaro ilaa reela DFO la rabo oo dadka inay wada socdaan la rabo oo magaca hadda wax dilo la sheegana waa magacii waagi hore anaga Soomaaliyeed magacaas waa dhibi jiray hadda in kasto wax isku burburiyo oo hadda dimuqraadiyaad la gaari adduun la yiri boqtiya la soo kicin sharciga hala saaro maxkamadii aan ku fiiwaa lahayn teena hala saaro insha Allah saasaan rajaynayna madaxay bismillaahir rahmaanir rahiim waa ustaadkii ijaanki sijin shuma official bismillaahir rahmaanir rahiim hortii macnaha halka waxaan ka bilaabayaa oo macnaha warkeyga ku bilaabayaa xanuunka ilaahay hortii aan iska gudbiyo maxaa yeelay nin walba asaga oo si xanuunka u gaaray Allah uu naxariisto gabadheeni Joweeriya Subcis xildhibaanka iyo inta kale oo dhaawacan oo maartay oo ehel ah oo Cabdirashiid iyo wixii adigu xildhibaan oo kale ama yani bini'aadan kale dadweynaha wax gaareen Allah u booga dhaw ayaan dhibaatada gaartay dabadeed horta anaga dad Soomaaliyeed waxa way isku xirxiranahay xididkeena waa isku xiran yahay Soomaali meel kasta joogto waliba carrada hadda jigjiga iyo kililka shanaad anagu u dhalanay runta sheegayna moogta aad iyo aad horta ugu tacsiyanaya gabadhaas iyo ehelkeedii Allah u naxariisto iyo inta Soomaali oo yani Allah ka samirsiyo oo aniga koob ka ahay iyo inta kale ila mid ah aad ugu xanuunsanay markaas lahayn kulliba markaan islahayn dawladaad noqoteen oo dawladii kililka shanaad way dhalatay way xirowday Soomaali way xirowday hadda gadaal inuu yani waxyaabo badan aan ka maqalno oo dhibaato oo yani hoose na gaarto oo dadkii shalay yani aan maleeynayn in wax laga haleynaayin iyo wax kale yihiinba meesha lagu soo dhunto oo la laay xildhibaanadii walaal waxaan ka xunahay waa runtii aad iyo aad ugu xunahay meeshana madaxay leedahay oo meel madaxa ka sarreyso la salaaxay ma leh taas waxay yani sheegayna walaalkeen iyo inta kale yani madaxda ah oo wadanka u talisa oo kililka shanaad u taliso anaga noo talisa oo Mustafa koo ka yahay aad ugu xumay inuu macnahay waliba dadweynaha kacay moodo ina xogo yani dadweynihii suxul maartay saas camal ayaad moodaa anaga waxaan dawladan waa dawladii barwaaqo oo islahayn ayada mataqana midda oo barsandaadka fuulayso waa ayada midda Soomaalida arunayso waa ayada midda oo yani dadka maartay kullayba maamulka meesha yaalo wax badan oo hadda ku dhibaato ku ceeb ayaa meeshan ka soo bixaysa anaga waa arkayna meesha inay ceeb ka timid maxay yeelay madaxda ay qusaysaa wixii dhibaato dhacay anaga waxa sacaabanayo dawladda waa u sabcinaa waxaan ilaa dawladeeda laakiin dadka laga rabo inay wixii xumaata ah suuraan wixii waxa leeyo kolba la soo qabaya la yiri hadii la soo qabto wixii waxa leeyo oo xabada riday qofkaas xabada riday xabada ma ka soo riday bas waa iska maridin waxba u jiro wixii jiraba way jiraan say u jiraanba way jiraan oo idinka joog iyo inta kale anaga dhagaha iyo wax walba ka maqleena adduunka maanta waa iska warhaya
adduunka maanta shanta qaaradood ninkii meel wax ka hadleeyo dadka dhan way ogyihin wuxuu sameeyey iyo sababta u sameeyey waa la garan karaa ninkii garan waaya haddaa garan waaya marka insha allah waxaan leeyahay dadweynaha sida loo xoreeyey oo u xoroobeeyey oo dowladda ugu tashanay u xoroobeen oo ka hadli karaan banaanbax samayn karaan wixii dhibaato jira sheegi karaan ilmo adeerayal waa in loo daayaa dadka inay hadlaan dowladdana waa inay wax ka qabataa wixii waxa leeyahay waa inay ka qabataa oo si degdeg ah wax uga qabataa oo si ummadda qalbigooda u fiyoobaado ya meel kastoo ku nool si qalbigeena u fiyoobaado dowladdaana uma rabin in macnaha xagtin soo gaarto uma rabin daalle madaxda sare idinkaa dilahadleyna idinkaan waa madaxa idinkaa wadanka u talisaan annagana idinkaa idinka daba sacabtunaa wixii halaada dirbadiiba waa inaad si ay dhibaato u keeno oo dadka qalbigooda loo xumaanay waa inaad ka gaartaan wixii haddii lasoo qabto oo waxa leeyahay waa in ciyooba sharciga la keenaa sharciga wixii uu soo saaro waa ku qanciynaa sharciga markii si lilaahi qofkaas loo saaro wixii dambi oo galay dadku way qancayaan oo maartay way qancayaan haddaan sharciga lasoo saarana xoogo ka dhacdo oo waxaas dhacaan dadku ma fiyoobaanayo marka insha allahu waxaan codsanaynaa madaxay hadda waa aada yaa ku sheegaynaa dhibaatada yay sii kordhin oo xumaatada sii badan idinkaa meesha ka madaxa fiyoobi keena wixii dambi galana hala soo taagay sharciga haddii lasoo taagi waane meeshaas xoogoo waxyaabaha waa la sheegi doonaa dadka waxbay sheegi bini aadan waa dadka ma fiyooba ma garata dad fiyo waa iska dhici karta laakiin dadka wax laga haleeyay ama wax dhibaato gaartay wax kale u qaadan karaan marka assalaamu calaykum insha allahu xanuunkaas lahayn inaan iska sheegno maanta waa ku khasbaneen assalaamu calaykum waxna laga qabto sharcigan marka waa waxa wadada nagu riday marka waxaa waaye anaga dhexdeena waa isgaranaynaa waa isla noolnahay dadku waa isla noolyahay waa la ogyahay laakiin qofka wax dilay magaciina ma ahayn magacuu wato waa isla garanaynaa magacu wato sida anaga hadda aan qabarka ugu hayno waa magacyadii hore oo anaga dhibaatada lagu haajira magaciyo wataa qofkaan magaca wata haddii ciyow laga gaari waayo oo dambigu leeyahay maxkamadda la saarayo maxkamadii oo anaga aan leen oo maxkamadeena sare oo jigjiga la saari waayo kilalka shanaad dowladeeda maxkamadeeda la saari waayo wax kale haddana u arki doonaa ninkaas waa in maxkamadda lasoo saaraa ilaa anaga ma ahayn qofku wax dilay sababtu u dilina waa ina maartay meesha waxbaa un ku jira ma garatay maxkamadda la soo saaro ilaa reela difiyooy la rabo oo dadka inay wada socdaan la rabo oo magaca hadda wax dilo la sheegana waa magacii waagii hore anaga Soomaaliya magacaas waa dhibi jiray hadda inkastoo wax isku burburiyo oo hadda dimuqraadiya la gaari aduu leeyahay boqtiya la soo kicin sharciga hala saaro maxkamadii aan ku fiyoobaa lahayn oo teena hala saaro إن شاء الله صار رجينا مدحي